kusoo dhawaada halqadii ugu dambeysay musalsalka Habboon qaybta 21aad qaybtan qaybo badan oo xasaasi ah ku jiraan muhiimna waa qaybtan qayb aad u xiiso leh ahayd Axmed wuxuu sameynayaa dhoolkiisu aad iyo aad u weyn marka qaybtan waxa horta xiisaha aad u weyn waxa waa qaybta DNA-ga iyo qaybtan kale oo Axmed asagana uu kala baxayo Jamaal Booska qaybtan kale shakiga weyn Jacfar okay saddexdaas qayb hadii si fiican uga hadalno qaybtan DNA-ga ayadana waa qayb aad iyo aad u xiiso badan waayo waxaan baaritaan ku sameynay hidde-sidayaasha dhinaca koobaad Cabdulla Jaamac Geedi dhanka kale Habboon si loo xaqiijiyo in ay isdhaleen natiijadii ka soo baxday baaristii hidde-sidaha Cabdulla Jaamac Geedi waxay caddaynaysaa in uusan dhalin Habboon sidee ay dhihi kartaa tilmaamihii oo dhan ayay leedahay aniga waxaan ahay hooyo been leema sheegi karo ka fiirsa arrintaas doctore arrintan waa arrin culeyskeeda loo miisaankeeda loo serious ah marka arrin ka fiirsasho u baahan way naga raali noqo annaga xaq waxaan u leenahay wixii soo baxo natiijada ka soo baxda meesha inaan sheegno waana ku kalsoonnahay 100% annagaana damaanadeeda qaadi doono adeer baaritaanka DNA oo meesha ugu dambaysa lagu kala bixi karo marka khalaas aan isku duceyno kaliya shakiga badnaa wuu soo dhamaaday adinkana waxaad ii rajaynayaan inaad gabadhiin heli doontaan annagana waa idiin soo duceynayna insha allah okaadi oo fahamkan oo adigana marka xataa jilinka markay sameynayaan dhakhtarka markuu soo baxayo way u wada istaagayaan ayagoo si reality camal ay u jilayaan qaybtaasna waa qayb aad iyo aad u fiican markay aysan lahaan waayeen xataa dhiigga DNA-ga aad ay u hanaaqday waxay samaysay reaction ayay samaysay wayna soo baxday okay qaybtaasna waa qayb aad iyo aad u xiiso badan jilinkeedana caadi maaha waayo waxaa arkaysaa qaabka ay isla markay u wada kaceen qaabka ay falcelintu ugu bixinayaan xataa odayga xataa isma dhiibaa isla markii xoogaha galaangal oo sameynaa wuxuu leeyahay arrintan waa arrin serious ah oo leeyahay odayga maamadana see ku dhici kartaa leedahay ayadana marka okay waa qaybta ugu dambeysay aad iyo aad u xiiso badneed qaybta Axmed kaalintiisa aad ugu soo baxay waayo Habboon oo murugaysan oo gurigeeda iska fadhiso ayuu soo waday wuxuu dhahay anaa ku farxad gelinayo murugadan wax lagu ma helo waa ogahay in waalidkaaga aysan ahayn waalidka hadda DNA-gana islahan waayeen anaa ku farxad gelinayo murugo ma leh waa la heli doonaa waalidkaaga soo bax banaanka uu soo waday maqaayad oo keenay uu sheekeeyay sheekadaas xitaa waxaa ku jirta qayb wacyigelin ah oo ka hadlayo dagaalada sokeeye iyo qabaa'ilada isdagaalayo dhibaatada ay leeyihiin waayo Axmed wuxuu leeyahay aabahayga anoo yaroo dhintay mise arkin oo dhahay aniga hooyaday ay soo korsatay aabahayga dagaal sokeeye oo ku dhintay si oo dagaal aan macno lahayn marka lagu dhahayo kale waa dagaal qabaa'il oo ku dhintay qorigiisa qaato oo dhahay woo la cararay oo baxay markaas aan ugu war dambeysay meedkiisa aan nolol sheegay marka qaybtaas urtaalo weyn waaye qaybtaas wacyigelin waaye oo astaan ay soo raaciyeen mar walbana film walbana horaan u sheegay film walbo misidaa la isku raaciyaa misidada bulshada ka dhex jira la isku raaciyaa filimkan iyo filmaanta kale oo Soomaalida sameysanayaan muhiimaddu wuxuu u yeelanaa misidaa la isku raacinaa dhibka naga dhex jiro si aan iskugu baraarujino oo xalna loogu gaaro marka ayada inkastoo ay kala gadoontay wixii oo giftiga uu siiyay asagana wuxuu ugu bedelay farxad
sida mayay aruuryaad miira la soo kacay meel mahigaan jilbaha dhigay dhirtu ay magoosho manka iyo caleentii iskumay raacsoomeen muda 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 dhulka muud ka soo baxay muranu dhex yaalo anaa ka macaaniyo waxaanay masciidee hadalaysu mari karin masha barwaaqa muuqooda habboone marmar baan ku moodaa amase kugu mataalaaye inta laga helaa سفران ما فكري وقتها xataa heesa uu dhuftay hees aan caadi ahayn oo u qaaday kataarka asagoo wato marka aad u farxad geliyay axmedna waa hogaamiye fiican haddii filimka loo dhiibo wayna la tahay in loo dhiibi doono waayo hadooba atariishada filimka ku socotay oo qisadii filimka xambaarsaneed hadooba ka ag dhawaaday waxaa kuu cadaanayso inuu hogaanka filimka loo diyaarinayo asaga axmed horta kaalintiisa aad iyo aad ayay u qurux badan tahay xagga jamaalna jamaal waxaa kuu cadaanayso in uu ka tanaasulay xiriirka kala dhexeeyay habboon wuxuu leeyahay wax walba waxaa ku muhiimsan raadinta waalidkaaga waa kula dareemaya xanuunka dareemaysid iyo mushkiladaha magaalada ka jiro sida goonida adiga ku saameynayaan waxaan kaloo dareemayaa geerida aabba saameyntii kugu yeelatay waan ogahay inuu ahaa rajada keliya aan lahayd isagana wuxuu jeclaa mar walba inuu arko adigoo reerkaaga la midoobay oo wada faraxsan aabbo ducaale bilow ilaa iyo dhammaad naftiisu ii horay anigana dhimashadiisaan sabab u noqday sababtoo ah anigaa u wacay iisu socda markay wax ku dhacaayeen insha allah niyadda khayr u sheeg waxaan kuu ballan qaadayaa booska aabba inaan kuu buuxin doono waxaan kaloo mudnaanta koowaad sii doonaa sida adii reerkaaga ku midoobi lahaydeen waana soo xaqiijinayaa sheegashada ay sheeganaya in adiga gabadhooda tahay runi been okay marka waxaa kuu cadaanayso inuu galay booska oda ducaale xagga jaceylka iyo xiriirkaasna oo axmed la wareegay saasa kuu cadaanayso marka dhankaasna waa arki doonaa say noqoto dadka xiiseeyo filimkan taxanaha ah musalsalka habboon waa filimka ugu horeeyay oo taxana ahaa oo telefishin soomaaliyeed sameeyey oo wadankana lagu sameeyey dhalinyaro soomaaliyeedna sameysay kana ugu horeey kana sidii loo xiiseynayo waa arkaynaa qaybta kale kuu soo hartay shakigii jacfar aad iyo aad u dabagalaa arinta oo habboon xiisey ku haysaa mar walbo xirsi imaado meeradda wuxuu weydiinaa habboon iyo arinteeda meelay ku dambeysay waayo aad uu shakisan yahay uu weydiinaa si asagoon laga shakin oo xirsi uusan u ogaan dareenkiisa ayuu u dhageysanaa xataa xaafadda marka loo sheego sidoo indhaha u taagaysa waayo gabadhan waa ifraaxdeenii oo sax ah ayuu isleeyahay Hey. ka waran shaqada wax qaldan ma jiro Maymad wax kasta waa okay. maasha allah Ka waran habboon, reerkii ma isla hadeen? may Waa ku xumaa wallaahi. anagoo dhan waxaa aaminsanaa in habboon reerkeeda heshay
jawaabta DNA-ga wax kasta caddeeyay. hadda maxaa la sameynaa marka Waxaa la sameyn lahaa raadintaa sii soconaysa. reerkan say isku heleen Abu Ducaale ilaahu naxariisto habboon meesha tusay ayadana marka waxay bilowday inay reerkeeda raadiso. Marka waxay heshay reer oo magac iyo wax kasta oo isku raacsan. Marka laakiin DNA-ga wax kasta caddeeyay. xaafaddu waa xaafadee marka Tawfiiq waaye. Qasku waan. marka sidoo horta asaga shakiga iyo tuhunka ugu jiro waalidkiisa ma ugu jiraan. Oday Xasan iyo maama Aamina waxay aaminsan yihiin inay dhimatay Ifraax. Ifraaxna waa Habboon. Habboon wuxuu ugu shakisan yahay Jacfar si aan caadi ahayn, waayo xaafadda xataa marka loo sheego soo dhahayo attentionkiisa waa ka dareemay. Haddana xaafadda markuu imaadaba gurigiisa, Jacfar gurigiisa markuu imaadaba isla markii haddana waalidku la waraaga arrinta. absa tahay waa fiican kaale la casho casho ugu baantay mayma waa soo casheeye shaqada wax qabadama ka siyaasad wallaahi meel fiican wax ii marayaan hadda shaqadooyinka dhan waa qaban karaa khibradda waa muhiim laakiin waxaa ka sii muhiimsan inay isfahamtaan dadka nin wax loo sheegi karna aad noqotid waa dadaalaa wallaahi dadka aan isla shaqeyn oo isfahansannahay hadda maanta waa keligaa shaqada qabanaya keligaa shaqeynaya wadda kula shaqeynaya kiil shaqeynaya maanta wuxuu raacay gabadh oo soo korsaday 20 sano ka hor reerkii is heleen isbitaalka iska heleen may isbitaalka wuxuu tagay natiijada si uu soo ogaaday inay is dhaleen in kale kadibna maxaa dhacay kadib waxaa la soo ogaaday inay isla hayn gabadhii reerka abo waxaa rabaa inaan kuu sheego Idi Aamin xalaa u sheegay arrintan gabadha kale hadlooy maajida Aamina soo xasuusay dhimashadii Ifraax laakiin waxaa rabaa inaan ogaado laakiin maxaa ogaanaysaa eedida Aamino inay ilowda geeda Ifraax waxay ku qaadatay muddo dheer aniguna sabab u ahaa adiguna waxaad doonaysaa maalin kasta inaad soo xasuusid ab xaq uma liimaad sababtu walaashay u dhimatay inaan ogaado ilaa had ma ogi sababtu walaashay u dhimatay رجاجي سلامتي لا إله إلا الله ورجعنا على كتك ورجعنا على إفراح 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 رجاجي كمان على كتك isla markii meesha hore ma ka imaanay miya ani meelan ku go'doonsanaa markii hooyada ay sheegtay markiiba waa aaday meeshana dagaal xunaa ka socday rasaasna way ka dhacayso anoon meeshiiba gaarin ayaa waxaa iga soo gaaray dhaawacaas caloosha iga yaal anaaba xaalad xun gala isbitaal laga qaaday sidee ku ogaateen inay dhimatay meesha ma la geli karin horta muddo bilna dagaala ka socday waxaa naloo sheegay maalintaas dad badan oo carruur ku jiraan inay meesha ku dhinteen iyadana kuwaasay ka mid ahayd waa baafinay warkeedana maana helin marka waa ka dareemayay in uu aad iyo aad ugu shakisan yahay. Familkana waxay aaminsan yihiin Oday Xasan iyo maama Aamina waxay aaminsan yihiin in gabadhooda ay dhimatay. Odayga xataa ma ogolaba in la soo xasuusiyo, waayo asaga xataa riyo yaroo gala qaybtii wuxuu leeyahay gabadhan aniga warbixinteeda qaabka u dhuntay ilaa hadda kama ruhayo oo leeyahay waa lagu soo celinaya Jacfar horta waxay ila tahayba inuu asaga arrinkan oo ka shifi doono oona keeni doono guriga
habboon marka koley hadhoween war taalaaba markii guriga ee imaado ifraax maa lagu wadi doonaa mise habboonaa lagu wadi doonaa waayo waalidkii ifraaxay ula baxeen dadka soo korsadana habboon ay ula baxeen marka hadhowe waxay ka taalaabo habboon maa lagu wadi doonaa mise ifraaxa lagu wadi doonaa